بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. waxaan soo bilownay casharadeenii imtixaanaha noo ahaa waxaan shalay kasoo hadalnay early bleeding pregnancy qaybta saddexaad bleeding early pregnancy qaybta saddexaad kasoo hadalnay waxaan xoogga soo saarnay soo dhameynay qaybtii ugu dambeeyay abortion waxaan kasoo hadalnay shalay ectopic recurrent miscarriage maanta waxaan ka hadlaynaa ectopic pregnancy maanta waxaan ka hadlaynaa ectopic pregnancy waxaan soo dhameynay hadda saas waxaan kusoo dhameynay abortion 1 iyo 2 isna kusoo dhameynay maanta afar waxaan ka hadlaynaa qaybtii dheeraad waxaan ka hadlaynaa abortion ectopic pregnancy. As you know, ectopic pregnancy-ga definition-kiisa inuu yahay ama intaan definition gelin, as you know, waxa waaye waa high mortality rate and mortality rate-ka waa high marka la joogo Africa markii qofka waxaa laga yaabaa inuu xilli late ah isbitaalka imaado inuu high mataqaana abdominal bleeding ama muscle bleeding kadib waxaa leenahay high mortality rate inuu siyaada. Definition-kiisa muxuu yahay marka definition-kiisa waxaa leenahay inuu yahay implantation yani waxaa dhacayo ectopic waxaa leenahay waa implantation of pregnancy yani waxaa dhacayo implantation of pregnancy outside of the uterine cavity yani waxaa ku dhacayna outside of the uterine cavity waxaa leenahay waa implantation of the pregnancy inuu ku dhaco outside of the uterine cavity waxaa leenahay sida caadi ka dhacdo uterine cavity. marka side ma leeyahay yani waxaan leenahay the most common side-ka ugu badan waxaa leenahay waa fallopian tube yani waxaa leenahay the most common side waxaa leenahay waa fallopian tube sama yani waxaa leenahay waa fallopian tube. Fallopian tube wuxuu u dhigmaa yani waa 98% yani waxaa leenahay waa 95 to 98 يعني waxaan leenahay percent waaye aan leenahay taan fallopian tube the most common waxaa leenahay asaga ugu badan fallopian tube. Fallopian tube asaga wuxuu sii yahay different part yani weliba haddii uu sii weydiiyo qaybta ugu badan waxaa leenahay waa ampulla waxaa leenahay fallopian tube kasaa sii qayb badan the most side waxaa leenahay fallopian tube waxaa leenahay waa ampulla oo ah boqolkii waxaa leenahay waa 70% yani 70% wuxuu kasii yahay fallopian tube yani fallopian tube waxaa the most waxaa ugu badan leenahay ampulla waxaa leenahay the most common side of ectopic pregnancy waxaa leenahay waa fallopian tube waaye fallopian tube wuxuu kasii yahay midii waa ampulla ayuu kasii yahay boqolkiiba 70. asiguna marka waxaa leenahay sidoo kale waxaa jira other side-ka kale other side waxaa leenahay waxaa leenahay waa rare yani waxaa leenahay rare yani rare waxaa leenahay waxaa kamid ah inuu ka dhaco waxaa loo yaqaano interstitium tube-ka waxaa leenahay waa proximal part-iga of the tube-ka waxaa leenahay interstitial tube pregnant oo dhaco loo yaqaano ovarian pregnancy oo dhaco abdominal pregnancy cervical ama cervix cervical ama cervix pregnancy inuu dhaco waxaa loo yaqaano cesarean scar pregnant inuu meeshii scarka ahayd yani cesarean scar yani waxaa leenahay sorry cesarean scar pregnancy inuu ku sameyso meeshii oo scarka lagu sameeyay qalliinka hore meeshii inuu ku sameeyo waxaa leenahay implantation site the most common site inuu waxaa leenahay waa fallopian tube boqolkiiba 98 meelaha kale waxaa leenahay waa rare maxaa waa interstitium yani waxaa leenahay waa proximal part of the fallopian tube loo yaqaan interstitium oo ku dhacsan waxaa leenahay waa rare ovarian pregnancy waa rare abdominal pregnancy oo dhaco waxaa leenahay waa rare ovarian waxaa ka dhici karaa inside of the ovary ama waxaa ka dhici karaa the surface of the ovary waxaa leenahay inside of the ovary or the surface of the ovary ayuu ka dhici karaa. Abdominal pregnancy iyo waxaa loo yaqaan cervical pregnancy inuu ku dhaco meesha loo yaqaano scar soma inuu ku dhaco cesarean scarkeedii inuu ku dhaco pregnancy uu ku sameeyo. sidoo kale waxaa jira waxaa loo yaqaano heterotropic pregnancy waxaa laga wadaa heterotropic pregnancy waxaa waaye waxaa dhacay two implantation yani ereyga ah heterotropic pregnancy waxaa leenahay waxaa dhacay two implantation ayaa sameysmaa mid soo sameysma laba two implantation mid wuxuu ku sameysmaa intrauterine yani intrauterine ayuu ku sameysmaa midna wuxuu ku sameynaa outside ku sameysmaa masalan tube fallopian tube ku sameysmaa yani waxaa leenahay one outside and one inside and outside laba xabaa sameysmaa implantation midna ku sameysmaa so marka qaar waxaa laga yaabaa ku aragto ultrasound inuu ku aragto inuu inside of the uterine pregnancy not means inuu yahay uusan jirin ectopic yani waxaa arki kartaa in waaxid ku jiro oo hal mid oo ku jiro inside of the uterine cavity
aan mid kale wuxuu ku jiri karaa outside maxaa waayahay laakiin waa rare inuu dhaco waa rare waxaa laga yaqaan ectopic pregnancy waa laba pregnancy midna wuxuu kusameysmaa ectopic midna wuxuu kusameysmaa inside of the uterine cavity midna waxaa waa outside midna waa inside this marka waxaa leenahay doctor waa ku fahmay okay waxaa leenahay waxaan soo fahnay definition of ectopic pregnancy waxaan soo fahnay the site of the ectopia the site of the implantation ama the site of the ectopic pregnancy hadda waxaa leenahay waxaan ka hadlnaa doctor incidence waxaa leenahay the incidence waxaa leenahay sanadihii u dambeeyay waa ziyaado yani waxaa leenahay sanadihii dambe the last 30 year waxaa leenahay the last 30 years dambeeyay soddonka sano u dambeeyay waxaa leenahay incidence increase waa ziyaada leenahay incidencega waxaa la arkaa yani sanad kasto annual report every year waxaa leenahay report soo gudbi waxaa leenahay waa boqol annual waxaa leenahay report waxaa leenahay sanad kasta waa boqol ilaa boqol toddobaatan iyo shan ber boqolkii kun yani waxaa leenahay boqolkii kun 100,000 boqolkii kun waxaa leenahay yani waxaa leenahay boqolkii kun waxaa lagu arkaa leenahay boqol ilaa boqol toddobaatan iyo shan boqol ilaa boqol shan boqolkii kun yaa waay inta ku jira reproductive age oo ah 15 ilaa 44 years old yani waxaa leenahay 15 to 44 years old inta ugu jira xaalad ayaa waxaa leenahay markii loo sameeyay ayaa lagu arkay intaas ayuu common ku yahay mase waa reproductive age kasoo toban ilaa afartan iyo afar boqol ilaa boqol toddobaatan shan ayaa lagu arkaa boqolkii kun oo qof is waxaa leenahay waa introductionkii guud ayaa leenahay sidoo kale waxaan leenahay plasticity waxaa la rabay inuu ku sameysmo implantation waxaa rabay inuu ka dhaco inside of the uterine cavity so yani meeshaan rabay inuu ku sameysmo inside of the uterine cavity kusmay marka wuxuu aaday this is the side of the fallopian tube كده قاعد حنا كمان وحنا أنبولا of the fallopian tube ده طبعا حنا وارير بس حلوة كنا interstitium يعني this is interstitium وارير بس اسمه ovary بس كنا وارير outside of the abdominal cavity بس كنا وارير بس كنا ماشي عن cervix كنا وارير طبعا cervix بس اسمه أن إيش سكان بس اسمه حنا هذا ما رير بس كنا علينا وا the أنبولا ما علينا fallopian tube بس كمان اسمه علينا implantation واللي جوه اسمه علينا حلوة كنا ectopic pregnancy ectopic pregnancy okay ma jira waxa loo yaqaano risk factor of the inuu dhaco mataqaana ectopic yes waa jira risk factor the first waxaan leenahay hadduu jiro previous ectopic yani waxaan leenahay hadduu jiro previous ectopic pregnancy waxaan leenahay hadduu jiro previous of ectopic pregnancy hadduu jiro leenahay previous ectopic pregnancy waxaan leenahay waa riski inuu dhaco yani boqolkiiba meeqa waa يعني بقولك waxaan toban iyo labo ilaa ogeeyay toban iyo 8% yani riskiga ah inuu dhaco recurrence yani waxaan doon previous ectopic pregnancy is the risky inuu noqdo ectopic pregnancy 12 ilaa 18 ee xaaladahay boqolkiiba sabab sidoo waxaan leenahay waxaa kamid risk waxaa kamid ah leenahay loo yaqaan pelvic inflammatory disease ama all yani sexual transmitted disease ama ay sidoo kale pelvic inflammatory disease waxaa leenahay can cause waxaa leenahay waxay sabab kartaa loo yaqaano ectopic pregnancy yani sexual transmitted disease waxaa leenahay chlamydia yani waxaa leenahay chlamydia infection waxaa leenahay waxaa leenahay can cause of waxaa loo yaqaano ectopic pregnancy as you know infection kan muxuu sameynaa what is the mechanism of the infection waxaa sameynaa loo yaqaano mucosa of the tube ee ku gaarsiina damage this damage wuxuu sameynaa marka وسمينا fibrosis وسمينا بس adhesion وسمينا مش fibrosis adhesion على الإسكان بلا ما حمل إسبرما ومرة مش قليل أفر المر لكن صلاة حالنا واحد عايز سمع بلان واحد عايز fertilization واحد عايز cell squares cell division cell covenant كل ما صلاة وخرام مش اللي بس هذا البيئة يجي أما بلفك في الأمر الديسيس كأمر سكشوال ممكن يصاب مصري يعني واحد ميوكوزا الدمج يجاسيات وأعتقد أنا بعض الفصول جربها قبلنا فينا هنا هو بلفك في الأمر الديسيس كان سكشوال disease كان risk factor of إنه ده حلو يقانو إنه ده متقانا ectopic pregnancy ده كل حاجة حلو يقانو endometriosis حالنا أيضا endometriosis حالنا مركز endometriosis حالنا هي مصر الحالة endometriosis كان أسيونا حالنا حوالي وحالة يعني يقين glanding أما endometrial glanding أيام اسمها outside of the uterine cavity يعني حاجة من ده إنه أول كلام fallopian tube ovary سواء حالة مركز this bleeding has been سمينا أيضا إنه adhesion of the fallopian tube this adhesion of the fallopian tube حالنا في زيادة
riski of waxa loo yaqaano ectopic pregnancy early adhesion ama ani mataqaana fibrosis meesha ka xidhan sidoo kale waxaan leenahay waxaa sidoo kale loo yaqaano contraception failure sida intrauterine contraceptive device iyo sidoo kale waxa loo yaqaano sterilization yani waxaa u sameeyay sterilization of contraception u sameeyo waa permanent yani sida ognahay contraception wuxuu leeyahay types fara badan leeyahay inaan sameeyo sterilization waxaan sameynaa aniga this is waxaa waxaan waa uterus this is waxaan waa fluid waxaan sameynaa fluid tubka xiran soo waxaan sterilization of fluid if marka tuna failure of sterilization ya dhacay oo fashilay failure dhacay yani waxaa dhici kara wax aan ectopic pregnancy waxay tubka waxa gaar damage waxa gaar injury waxaan la injeedaa risk of inuu dhaco ectopic pregnancy as you know all method of contraception هذا بعد طبعا all method of contraception waxaa leedahay waa very effective inay prevention ku sameeyaan effective waa aad u saameynaya inay sameeyaan to prevent intra and extra implantation inuu sameeyaan pregnant hada waa intrauterine pregnant ama outside inuu sameeyaan ayay most effective laakiin kuwa qaar haday failure dhaco sida sterilization failure ku dhaco kale ama loo yaqaano mataqaana failure of intrauterine contraceptive meesha ku jira doo celi waayo most common cause ka soo gara waxaa waa ectopic increase the risk of يعني أنا كلما أقول failure of contraception increase the risk of ectopic pregnancy. Any failure of contraception حالنا بزيادة risk of ectopic pregnancy. The most common يعني intrauterine contraceptive device لقينا وقت intrauterine device لقينا سوا وقت بتوعنا وقت device لقينا inside of uterine cavity وقت بتوعنا kemudian hal nanti cerita sebagai itu orang apa semua sekolah akhirnya kaya nomor 5 orang insyaallah waxaan nagu ziyaadiyay riska infection ugu ziyaadiyay toy pregnancy ayu ziyaadiyay sidoo kale waxaan leenahay waxyaabaha ziyaadiyay waxaan leenahay ama riskiga waxaan leenahay ziyaadiyay assisted reproductive method ama technique sida maxaa kamid ah inta waxa loo yaqaan IVF oo ah in vitro fertilization waxaan leenahay in vitro fertilization ka يعني بعد ما خلاص يعني غير infertility waxaan waxaan assisted يعني barnaamij technique oo sameeyay waxaan sameeyay IVF waxaan loo yaqaan IVF ka ah in ilmaha isku talaalo ilmaha isku talaalo marka waxaan IVF xijaanaysaa inaan noqon ziyaado ka tahay cause multiple pregnancy يعني multiple pregnancy oo noqdo 3 4 oo multiple pregnancy asoo kale inuu noqdo ectopic pregnancy inuu noqdo ectopic pregnant IVF sidoo kale waxaa risk waxaa kamid ah increase the maternal age يعني increase the maternal age hooyada age-keeda uu ziyaado waxaa increase the maternal age waxaa kasoo hadala shalay abortion kuna kaalin waxaa dhacday most common waxyaabaha abortion kasoo waxaa kamid maternal age waxaa dhacday maternal age waxaa lama uu ziyaado increase the maternal age ziyaado risk of abortion kisoo weliba rekaan abortion keena why because waxaa dhacday waxaa yaraanaya increase the quantity and quality of the ovary ovum kana ujeedo waxyaalaha quality la yaraanayo sama example waxa lagu soo qaataa markii la qaybinayo kala dhacdo waxyaabo oo aan doo kale example inta lagu soo la qaybinayo saf laga soo maro qof raxmada kala buuqa qof kala baxay u qorto badan waxa soo markaa baa ku shaqo sama sidoo kale ovary marka bil ka soo baxay ovary ka fiican waxa la isku haro ovary dhamaad waxa yaraanayo quality and quantity shaqo saarto waxaa ka qosayso waxaan quantity waxay ka tahay abortion laakiin meeshaan not like this maternal age ka waxaa leenahay effective ectopic maxaa waaye أنا كنت سمينسا altering يعني alteration أنا كنت سمينسا tube activity sama يعني tube and motility أنا كنت سمينسا alteration أنا حتى حاجة أفضل فلان tube motility activity gitu not like miscarriage أنا شنو غير أنا miscarriage كان غير أنا نحن quantity and quality of the ovary لكن بتخيل حتى عايز change أو حتى عايز فلان tube activity كده أما motility أنا حتى عايز أنا حتى عايز change حتى عايز change ka tahay altahay keen kana in ziyaadada pregnancy so atresh of the sidoo kale waxaa leenahay smoking smoking ka ayana waxaa leenahay smoking ka waxaa la arkay inuu ziyaadinayo also inuu keenayo change asna sidoo kale the alterate of the fallopian tube so yani waxaa leenahay change of the fallopian tube yani smoking ka iyo increase the maternal age so sidoo kale hadii bukaanka loo sameeyo wax loo yaqaan previous hadii uu galo bukaanka previous hadii uu sameeyo
previous pelvic surgery haddii bukaanka oo galay previous pelvic surgery haddii oo galo previous pelvic surgery ani pelvic surgery ee gashay mar hore ma noqdo waxay jeedinaysaa riskiga of maxaa yeelay this pelvic surgery wuxuu keeni karaa damage ama injury ee ku sameynaya flow tube waxaan ani خلينا هرب من البنات دايما previous pelvic surgery ده خلينا هرب صار عندنا زيادة risk of pregnancy why because operation كان كان damage and injury من الدارو ده fallopian tube ده فأنا this سبحان الله ده risky factors كده. But what is the pathophysiology? What is the pathophysiology? حالنا pathophysiology وحالنا أني abnormal وحالنا هاي pathophysiology of the pregnancy وحالنا أني abnormality of the fallopian tube any abnormality of the fallopian tube and any abnormality of fallopian tube لو ميت سما maybe two abnormality may لو ميت سدح مرة واحدة سما هنا نقول abnormality of the fallopian tube abnormal of the function سما abnormal of function هي abnormal of morphology سما morphological يعني بناء كده في abnormal of morphological or abnormal of the function حالنا هي can lead and can cause ectopic pregnancy. This is حالنا هو general conception of معلومة good one. سمع ectopic. حالنا هي يعني كأنها ectopic. يعني حالنا any abnormal of fallopian tube. Any abnormal kalau استوقف fallopian tube كشكلها functional or morphology qaab uu sameeyay oo morphology ahaanteeda ama functionkeeda haduu change ku dhacay keenaysa ectopic pregnancy. As you know the ovum this is على الهواء fallopian tube this is على الهواء uterus يعني as you know as you know meesha waxaa leenahay fallopian tube waxaa ka dhacay fertilization ka dhacay waxaa isku imaanaya ovumkii iyo spermihii ayaa iskugu imaanaya waxay sameynayaan fertilization waxaa dhacay cell division dhacay kadib baa lasoo qaadaa waxaa la keenaa inside of the uterine cavity waxaa ka dhacay implantation ayaa ku dhacay uterine cavity sama saa hore u socda this is the normal process ka taqaano waa yani inuu dhaco meesha fertilization and then transport soo qaado la keeno uterine this is the also we have done waxa taqaano general ka taqaano so transport of the fertilized ovum from the fallopian tube to the uterine cavity wala faanto ila socda marka waxaan leenahay waxa dhici kara marka laba qaybood waxaan ku dhici karo pathophysiology number 2 waxaan leenahay number 1 waxaan leenahay waa the most common ama the most important cause waxaan leenahay inuu gaaro damage waxaan leenahay inuu gaaro damage gaar ahaan inuu damage gaaro the fallopian tube gaar ahaan inuu damage gaaro the fallopian tube waa the most common waxaan leenahay the most common cause-ka keeni kara waxaan leenahay ectopic waxaan leenahay inuu gaaro damage of fallopian tube mucosa and fallopian tube mucosa of fallopian tube inuu gaaro damage ama inuu gaaro dhaawac injury inuu gaaro sama dhaawacaas waxaan leenahay gaarayo wuxuu sababi karaa laba mid sama dhaawacaas gaaray damage wuxuu keeni karaa laba mid sama laba mid uu gaari karaa damage number 2 wuxuu keenaa inuu sameeyo this damage gaaro wuxuu sameeyaa damage gaaro wuxuu sameeyaa inay meeshii dhaawac ay sameeyo inuu healing sameeyo fibrosis and scarring sameeyo this healing kaas wuxuu keenaa inuu dhaco meeshii obstruction wuxuu jameeyaa obstruction ayuu wuxuu joojinaa dhahnay shaqadii normalka ku soo hadlayay shaqadii normalka waxay ahayd from fallopian tube to the uterine cavity marka waxaa meesha obstruction dhacayo in yani transfer yani obstruction of transfer of the fertilized ovum ki imaanaysa fallopian tube in soo gaari wayso uterine cavity ayaa dhacay why dhacay because meesha waxaa dhacay healing dhacay damage and dhaawac meesha gaar injury gaar healing sameys healing kaas waxaa scar طبعا meesha waxaa scar kusoo this scar waxaa sameynaa obstruction of the bash la diyaariyay oo fertilized ovum ki diyaarka ahayd from inner demon fallopian tube to the inner uterine cavity ayaa waxaa obstruction why because waxaa gaaray damage of uterine mucosa of the fallopian tube this damage of fallopian tube kan dhaawacaas gaar waxaa dhacayo inuu sameeyo healing anigoo daa scar meesha sameeyo ila marka meesha oo ku hodhow fertilized ay soo dhaqaaqayso is waxaa waa
maybe this damage ka noo soo gaara. This damage wuxuu keeni karaa inuu sameeyo attraction, inuu attraction ku sameeyo ama attractive inuu meesha ka dhacay implantation inuu ka dhacay attraction ku sameeyo inuu soo jiito inuu attractive ku sameeyo implantation ku sameeyo the fluid tube ku sameeyo ayaa meesha dhaawac soo gaara loo sameeyo kartaa. Number 2, this is the most common kadhacday waa inuu gaaro damage of the mucosa. Number 2 waxaa leena waxaa dhacayo dysfunction yani waxaa dhacayo dysfunction sabab yani shaqadii ayaa waxaa dhacayo waxaa loo baahan dysfunction waxaa leena waxaa dhacayo dysfunction intuu ku dhacayo dysfunction waxaa leena waxaa ku dhacayo tube-ka fallopian tube-ka smooth muscle activity yani smooth muscle-ka of the fallopian tube yani waxaa leena smooth muscle of the fallopian tube activity ayaa waxaa ku dhacaya dysfunction ila socota dysfunction ku dhaca motility yani waxaa laga soo motility soo dhaca qaar waxay meesha soo qaado soo ma motility uu sameeyo yani transport yani qaar motility of the fallopian tube soo qaado dhaqaaqii inuu sameeyo hadaba marka dhaqaaqa waxaa leena dysfunction of smooth muscle marka waxaa leena maxaa sababi karo inuu dhaco dysfunction of yani waxaa leenahay the motility-ga of the fallopian tube-ka waxaa saameeyo estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone-ka waxay saameeyaan the function-ka of the smooth muscle-ka of the fallopian tube activity. Waxaa leenahay waxaa dhacay smooth muscle activity iyo xataa estrogen wuxuu sameeyaa estrogen wuxuu sameeyaa stimulation. Estrogen-ka wuxuu sameeyaa stimulation ay wuxuu ku sameeyaa waxaa loo yaqaano electrical activity of the fallopian tube. Progesterone wuxuu sameeyaa inhibition wuxuu sameeyaa leenahay this electrical activity of the fallopian tube oo joojiya so marka waxaa leenahay estrogen and progesterone ratio waxaa leenahay marka uu saameyn karaa so qaabka uu saameyn karaa means if hadduu ziyaado estrogen level maxaa dhacay spasm so يعني واحد زيادة activity increase the estrogen means increase estrogen حاطة عالي ونصور إنه increase the spasm اللي بنسميها of the fallopian tube. This spasm has ماشي ويقسم يسمى الآن واحد شخص يبغى طب إسرائيل ماشي. This spasm اللي بنسميها obstruction يعني to prevent the transfer of the fallopian tube the ovum fertilizer from key من fallopian tube to uterus كأنه بنسميها obstruction ku sameeyay yani transportigi ayuu joojinaa why maxay waxa dhacay spasm soo marka waxa la arkaa bukaanada qabo waxa loo yaqaano bukaanada oo mataqaana qabo sida ovarian hyperstimulation yani ovarian hyperstimulation waxa dhacay waxa jira high estrogen this high estrogen ka wuxuu sababi karaa soo marka waxa la arkaa bukaanka qabo ovarian hyperstimulation high risk to be ectopic pregnancy why maxay ectopic ku badan waa maxay estrogen-ka ayaa ziyaadayo hyperstimulation ovarian syndrome waxaa ziyaada estrogen-ka ziyaada wuxuu ziyaadinaya activity-ga of the fallopian tube-ka activity-ga waxaa dhacay spasm-kaas waa contraction soo meesha waxaa dhacay marka inay wixii soo mari waayaan soma hay waxaan leenahay ovarian stimulation syndrome ovarian hyperstimulation syndrome sidoo kale bukaano waxaa la arkay eedane qaado waxa loo yaqaano post-coital yani waxa loo yaqaano post-coital yani post-coital yani sexual intercourse dhacay markuu sexual intercourse dhacay wuxuu qaatay post-coital waxa loo yaqaano estrogen progesterone pills iyo qaatay si uu joojiyo to prevent the pregnancy so pregnancy joojina hadduu joojiyo wuxuu sababa eedane wuxuu sababa ectopic pregnancy why ectopic pregnancy maxay estrogen-kaas high au wuxuu spasm of the smooth muscle progesterone maxaa dhacay progesterone wuxuu sameeyaa inhibition example bukaanka qaato only progesterone pills maxaa dhacay only progesterone pills maxaa oo keena relaxation wuxuu ku sameeyaa of the smooth muscle of the fallopian tube this marka xaalada waxay keenaysaa waxaa dhacaya inuu dhaco retention soma in meesha ku jira soma yani waxaa dhacaya retention of fertilizer ovum-ka waxay ku haraysaa meesha مش مرحلة implantation كده عايز موجود activity مجرى مو بقى بقى كيف أنا ماشي موضوع كده أنا أو أنا مجرى معايا بالمشترك هاي بالمشترك بنقول relaxation of the إنه ده fallopian tube معانا وحاجة جوكسنا هاي إنه post متقن إنه ماشي retention كده أو fertilizer of the سودي tube إسكار هيك تبع يسألنا حالنا هو مهم سو كان نمبر 6 waxaa la arkay number 3 waxaa la arkay يعني مصدر embryonic abnormal waxa loo yaqaano embryonic يعني waxaa leenahay waa
embryonic embryonic abnormal يعني إحنا حالنا إنه بقى embryonic abnormality حالنا هاي waxa the majority of the ectoembryos waxa la arkay inuu yahay non-viable fetus ku jiro inuu yahay ayaa la arkay marka xaalada dislayda waa embryonic abnormal inay keeni kartaa ectoembryos clinical presentation maxaa dhaxay wuxuu ka kooban yahay history and examination history maxaa mudan weydiinaysa history waxay ku siinaysaa of amenorrhea waxay ku leedahay wallahi doctor waxa ahay amenorrhea for 1 month amenorrhea waxa ku dhiigayma 2 bil 3 bil calaamadii pregnant amenorrhea ku siinaysaa labo waxay ku siinaysaa pain yani waxay ku leedahay wallahi doctor waxaan dareemaa pain and trauma yani ku siinaysaa history of pain maybe history of vaginal bleeding لكن not all cases مقبول إيمانها vaginal bleeding not all cases لكن most common cases يكون إيمانها pain لكن not all patients مقبول إيمانها vaginal bleeding صح لنا مقبول إيمانها acute abdominal pain مقبول إيمانها patient rupture of rectory مقبول إيمانها على مدى shock مقبول إيمانها تصمم إنه مقبول إيمانها shock أو last stage مرة hypothalamic shock مقبول إيمانها أقوى أكتسون هي shock أقوى حاجة لها داعي رابشر اكتوبيك داعي ماسك intraabdominal bleeding بحيث تقول إيمان examination ما حسب من examination حالنا وحاول قيمنا جنرال شنو عادي صار جنرال ما حسينا مقام إنه بتستوعب بس ما بتستوعب يعني ما فينا pulse rate في heart rate في blood pressure في صح patient stable or not stable بس إيه سأوصل من resuscitation صح general examination abdominal examination abdominal ما عارفها abdominal pain abdominal tenderness صح abdominal tenderness عارفينها صح abdominal tenderness ayaan arkaynaa sidoo kale waxaan leenahay number 3 waxaan arkaynaa vaginal examination waxaan arkaynaa waxa loo yaqaan cervical inuu jiro cervical excitation cervical excitation ama waxa loo yaqaan adnexal tenderness sidoo kale hadda gacanta waxaan arkaynaa fullness of Douglas pouch Douglas pouch oo u dhaxeeya leenahay this is the uterus rectum triphasic this pouch waxa la yaqaan PV aan gelin waxaan arkaynaa fullness of the Douglas pouch So, this is what I learned history and examination. Investigation of the HCG. And when we cover abdominal pain and amenorrhea, so I learned BTCG. Negative or positive. One positive or one negative. Means negative, I exclude the pregnancy. I maybe this acute abdominal pain, I have ovarian cyst complications, appendicitis, pancreatitis, maybe abdominal pain, or how can pregnant, not related to pregnancy. So, if positive, this is what I learned. Hadrena ultrasound to compare with the site of the pregnancy. So, the laboratory have the other extracting at the serum HCG and very important for follow up. يعني حصلنا doubling يعني حصلنا doubling يعني ولا بالله مثلا doubling every 48 hours. ثم doubling حصلنا every 48 hours حصلنا doubling سمعنا صح. مركي توي بيننا حالنا هاي doubling بس سمعنا لكن هو rise لكن slowly يعني هو فعل لكن slowly increase. سمع بينما abortion حالنا هو decrease. سمع ما بيننا حالنا هو increase very high. كلا حالنا small يعني شوية حالنا ترتيب وقع. أصلا حالنا عندنا progesterone. Why progesterone? As you know, HCG هيك وضعي. HCG the function كأول ميزة حالنا هو to maintain the corpus luteum. سمع HCG to maintain the corpus luteum حاول to produce the progesterone. سمع if HCG normal double every 48 hours means شنو corpus luteum حالنا هو في عنا normal مثلا means progesterone حالنا هو normal. إذا صار سمع حالنا هي if يعني تقنين سي double means waxa way marka waxa laga rabaa sida caadiga ah inuu ka badan yahay 60 nanometer 60 nanometer means waxa laga rabaa is normal pregnant laakiin oo less than uu leeyahay 20 xubinta oo soo pregnant inta u dhaxaysa marka 20 ilaa 60 yani between 20 and 60 waxa laga rabaa abnormal inuu pregnancy sida ectopic pregnancy so laparoscopy waa laba shaqo waay diagnostic and therapeutic يعني ما كنت أقول لك أنا يعني وجري كلام تمام هذا diagnostic and laparoscopy this حالنا هو this laparoscopy this حالنا هو ovary this حالنا هو ectopic pregnancy this هو femperia يعني حالنا هو the end of the fallopian tube كي يعني حالنا ما this حالنا هو bleeding وكلامنا bleeding سماه this هو كلامنا bleeding سماه فحالنا laparoscopy حالنا هو therapeutic and diagnostic يعني ما كنت أقول لك
waan kusoo tala oo kusoo bixinaa ectopic pregnancy sama labadaas waa isku qaban transvaginal ultrasound مصر ما استعمال abdominal ultrasound because maxay abdominal ultrasound waxaa badanaa ma diagnose garay karo ectopic pregnancy transvaginal ultrasound ka waxaa leenahay mostly waxaa leenahay all shay waxaa leenahay to confirm inuu jiro inside pregnancy inuu gudaha ku jira in kale soma inside or outside yani marka outside waxaan ku arki karaa inuu jiro maybe gestational sac oo leh with inuu leeyahay sac inuu leeyahay a life period uu jiro sama preventive waxaa laga yaabaa gestational laakiin not fetal heart malhamba no fetal heart beat like what sac maybe empty sac so maybe inuu jiro sac laakiin leh yolk sac yani waxaa waa gestational with yolk sac waxaa laga this waxaa loo arki karaa this ectopic pregnancy maybe inuu soo noqon karayo empty sac of the ectopic pregnancy maybe fetal heart beat positive maybe fetal heart negative so waxaa loo arki karaa this is laparoscopy this is waxaa laga this is why uterus this is waxaa laga uterus so this is waxaa laga fallopian tube marka waxaa this fallopian tube waxaa lagu sameeyaa pregnancy this waxaa laga ectopic pregnancy waa inuu meesha ku jiro this waa fetus so this waa fetus ana markii la xisaabiyo crown rank length maybe this is waxaa laga inuu noqdo 5 to 8 weeks so marka this waxaa laga 5 week ama 8 week means what is my ectopic pregnancy this is waxaa laga proposal fallopian tube this is normal uterus this is normal uterus and this is fallopian tube inuu dhaca implantation very very important waxaa and this is how to differentiate between normal gestational sac this waxaa laga normal gestational sac iyo waxa loo yaqaano pseudo sac maxaa pseudo sac waxaa moodaysaa inuu sac thing is inuu sac ama sac this video this waxaa laga only waxaa leenahay waa fluid ku jiro iyo train iyo lagu arkaa badan waqtiga ectopic pregnancy waxaa arkaysaa like this waxaa laga only waa fluid ku jiro inside of the uterine cavity waxaa lagu yaqaanaa pseudosac waxaa moodaysaa pseudosac waxaa moodaysaa inuu yahay mataqaana pseudosac waxaa leedahay waxaad moodaysaa inuu mataqaana yahay sac mana aha sac yaan lagu arkaa ectopic marka waxyaabaa keena misdiagnose of ectopic pregnancy ultrasound loo diraa waxaa arkaysaa waxaas pseudosac arkaysaa this pseudosac waxaa moodaysaa inuu yahay gestational sac waxaa leedahay there is inside of gestational sac is no ectopic pregnancy blank iska baxa hadda waxaa kula imaan complications of ectopic pregnancy oo rupture of ectopic pregnancy sama marka waxaa laga very important to know inaad ogaato inuu baxlo pseudosac inuu arki karo bukaanka ectopic pregnancy ama this is one normal gestational sac this is inside of the uterus and this is waxaa laga decidua this is waxaa laga decidua and this is waxaa laga Korean so this waxaa laga normal gestational sac ama pseudosac waa lagu arkaa waxaa lagu arkaa ectopic pregnancy lagu arkaa markaas sac moodaysa laakiin sac wadii caadi isaga jira meesha managementiga waxaa leenahay if patient stable or not stable if unstable hemodynamic kalima ka soo examination soo sameeyo stable ma aha balse waa shock waayo waxa bilaa waxa loo yaqaan resuscitation I will start resuscitation so resuscitation maxaa sameynaa airway so A B C so airway na fiiriyo breathing C maxaa ku xidhnaa two heart can laba kan loo weyn ku rakibana so midna waa input midna waa output so maxaa waa input waxaan galna ani fluid fiber sina maxaa waa normal salaay steroid and coil fiber la sina ani leak oo yahay fiber waa sina kala wana input output waxaa ka qaadaa blood glucose ka qaadanaa so waxaan ka qaadanaa hemoglobin ka fiirna maxaa sameeyaa loo yaqaan phosphates so أنا أصلاً أودي أنا preparation بلاد أنا أودي أنا ما هاي الواحد من ذلك أنا stable لكن دوي stable وحنا نحلوه كأنه definitive management definitive أصلاً وحاول هاد هنا ده صارت هنا داوي definitive management يقول definitive حاجة تعملها وسيرت كأنه داوي medical and expected management من الأول سيرت the best option واي مكان of and hemodynamic and stable كان دوي hemodynamic and stable the best option على سيرت أصلاً if hemodynamic and stable دوي number 2 if fetal heart beat يعني دول هي heart beat دول جرو أو heart activity دول جرو حالنا heart rate positive أو هي وحالنا best option بسيرك كده fetal CT دول كبر هي صدق حالنا أيضا حالنا more than 3000 وحالنا the best وحالنا هو surgery option surgery محاسبيننا surgery محاسبيننا ما يبينا سمينا laparoscopy أما يبينا سمينا laparotomy صح
laparoscopy inaan ku qala ama inaan furo laparoscopy open of the surgery laparoscopy or laparoscopy haye optionskaas inay maxay tahay tube waxaan sameynaa inaan sameeyo salpingectomy inaan bixiyo salpingectomy salpingectomy inaan sameeyo inaan sameeyo salpingectomy iyo waxaa wada marka iyo tan salpingectomy what is the difference of the salpingectomy so what's the difference between salpingectomy and salpingectomy so salpingectomy waxaa waaye waa jara this is waa tube this is a tube waxaa ku jira sama macna salpingectomy waa jara خلاص waana tola waxaan lahaa salpingectomy ama salpingectomy waxaa waaye waxaa ku jira sama meesha imperial ku jira waa fura waxaa ka soo bixina imperial waa ku xiraa waxaa lahaa salpingectomy are the best option if other tube can do or healthily the tube can offer عينها وحالنا the best option وين أصلا أيه salpingectomy لكن other tube can not help وضوية هاي أصلا عفمات خلينا أو خلينا حالنا هاي is better أوفرنا إن أصلا هنا salpingectomy بس حالنا هو surgical أيه medical treatment حاسمينا medical treatment حاسمينا نحلوه أنا ميسو تركسين صبا ميسو تركسين أصلا نحلوه ميسو تركسين injection أو بلاوة لكن يا وكريتيريا ده لأن هذا نمبر 2 هيموديناميكال ستيبل يعني المكان هو إنه يهاي ستيبل يعني المكان ستيبل هي مثلا أنا مو سمعنا هيموديناميكال إنه يهاي مكان ستيبل إنه يهاي well control of the pain يعني بين إنه يهاي well control أو إنه يهاي mild إنه يهاي pain HCG ده إنه كيرت هاي لزنا طبعا HCG إنه كيرت هاي كون يشبه يعني less than 1500 يعني international unit نقول هاي less than إنه يهاي rupture إنه يهاي rupture يكتوي بريمس دور rupture يكتوي يبقى سيرتيكال وإنه يهاي rupture يكتوي بريمس قرح إنه rupture سمعي بريمس قرح rupture يكتوي بريمس طبعا وإنه سنجرين no fetal heart beat no fetal heart activity يعني fetal heart activity سنجرين no fetal heart surgical إيش عملنا medical management أيام وسمينا طبعا وعسمينا مثل تركسين عندنا عسمينا محل ويقع follow up of HCG follow up عسمينا HCG يعني عندنا مالت أفراد يعني مالت طبعا عندنا مالت كويتونات عندنا every weekly إلا لقوينا undetectable of HCG لقوينا so if patient of this تركسين مثلا contraindication yes contraindication يعني contraindication ويا of renal disease, liver disease, hematological disorder. أنا recommend of breastfeeding contraindication أيوه وحصل بالبيئة لما سيكر كنا contraindication. I'm basically called immunodeficiency, point of immunodeficiency, breastfeeding, liver, renal disease كخوارده اللي قبل كل ده يعني liver disease, renal disease. أنا على نوع contraindication. Okay. وكان يخاورنا في تفسير can be pregnancy no. يعني pregnancy كان حالنا at least when it's 3 months at least حالنا she must wait 3 months why because the menstruation can be tetragenic يعني كان مسبب congenital malformation مسبب كان menstruation so حالنا you must avoid the pregnancy for 3 months avoid the 3 months avoid the sexual intercourse for 3 months طبعا to سوي يعني مسبب congenital malformation طبعا اسمه حالنا مع medical treatment expected management how expected management باستعمال without medical treatment no surgical treatment باستعمال natural أو حالنا هاي وحقنا عايو natural وحقنا عايو topic وحقنا عايو solve وصور بقى صمم لكن بلي كراتيري less than يعني مصر بنا مقدار الساق less than 5 cm ما في تلحات بي HCG ما less than 100 كل إشان بغضان less than 150 5 cm وده نجا stable ساق less than 5 cm صار أحيانا هو very important advantage كم advantage كحالنا هي لو حكينا أنا side effect of كي معنا هي surgical كي iyo medical كي صار بيسترسل في حاجة كي معنا side effect أنا بيسترسل iyo surgical كي effect أيا كيان disadvantage كوي and also advantage كحالنا هو home management يعني هو كل يقال داوي home management كحالنا هو advantage disadvantage محاكمة disadvantage ممكن كذا وكان إنه failure طبعا صح إنه rupture ectopic rupture ectopic failure of expect management rupture ectopic إنه قرحة صح وقولي بقى massive intra-abdominal bleeding وقولي بقى صح
So the expense management not the first option, not the first option of the management oo la isticmaalo ma wuxuu baahan sidoo kale follow up yani wuxuu qaada prolonged follow up marka wuxuu kale stress and psychological ayuu qaad ku noqonaa sama wuxuu noqonaa prolonged also waxaan dis waxaa la rabaa expected management so waxa waaye this is Toby Pringles waxaa soo gaarnay gabagabadeenii waxaan leenahay everyone yani waxaan leenahay everyone wuxuu leeyahay different o'clock qof kasta wuxuu leeyahay saacad ku duwan dadka saacadda hadda waa weyn tahay saacaddan waa yar tahay kama yani waxaan everyone wuxuu leeyahay different o'clock yani shakal ahaan tan waa yellow tan waa mataqaana blue tan waxa waa pink sama iyo waxay leedahay kalarka ka duwan iyadoo saacad ahaan waxaa leedahay everyone wuxuu leeyahay different you have different outlooks for other ones. Some of them look at it so don't compare of kala adiga waxaan isku gaaray anima aan gaaray way qofka masaba qabsay yooman maanta oo ku imaanay wait your time maanta suuq waa xaraaqay waa qofka xasdi qofka ka xumar qofka wuxuu gaaray you must waa gaaraysan wait your time qofka wuxuu leeyahay time ayuu leeyahay waxa way wait your time waxaa degdegi waxaa xanaaqay qofka leeyahay ka xasdi ka nixi aan soo maxay maanta ku imaanaysa waxna degdeg wait your time everyone oo ka tacdi waa loo fasirayay in maanta ku kala taxan adigu fasal aha oo ka fiicnaa ka dadaal badan inaad heli laakiin hadaa sugto waxaa laga yaabaa 5 sano kadib 10 sano kadib aad kadib inaad waxiyo wax ka sarreeya hesho oo ka fiicnaa marka wait your time waxba degdeg sanad waxaa soo gaaray dhamaadkeen